bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan qayaarteena daawanaysa meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan marcadda show waa 16 bisha sebteembar sanadka 2024 qodobada qaybtanan kugula wadaagi doona waxaa ka mid ah 5 sano ka hor sidee ayay masaarida u burburisay qaar ka mida godadkii ay dhaqdhaqaaqa xamaas isticmaalayeen muuqaalada telefishinka aljaziira uu soo bandhigay waxaan eegi doonaa fashilka weyn ee Israa'iil dhexda ay ka joogto muqaawamadu awood intee la eg ayay u leeyihiin inay sii dagaalamaan weliba ay ku dagaalamaan hub casri ah xamaas maxay ka yiraahdeen in Israa'iil ay askarayso qaxootiga Afrikaanka ahaa si ay ugu dagaalamaan gudaha magaalada Gaza fashilka Israa'iil dhexda ay ka joogto qayladhaanta Israa'iiliyiinta ka soo yeeraysa miyaa la dhihi karaya Israa'iil way ka caddahay oo waxay doonaysaaba cid ka soo gabagabaysa dagaalka ka soconaya magaalada Gaza diyaaradda ay Xisbullah leeyihiin ay gudaha u gashay 30 kilomitir gudaha Israa'iil fashilka halkaasi mar kale ka yimid hanjabaadaha kala duwan ee Xuutiyiinta xaaladdu sida ay tahay ayaan kula wadaagi doonaa soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan like sar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsan tahay Royal Modern Homes riyadaada weeye ma doonaysa inaad Nairobi ku yeelato guri sidan u qurux badan baaxad weyn una dhameystiran yihiin adeegyadiisa oo dhan sida masaajidkii supermarketka goobta waxbarashada goobaha ciyaarta carruurta jimka dabaasha iyo wishkii aad raaci lahayd haddii aad doonayso fadlan la xiriir Royal Modern Homes oo wac telefoonka shaashada kaaga muuqdo fiiro gaara marka shirkadda ay ku iibisa guri waxay ku soo saari doontaa deganaanshaha dalka Kenya weliba si lacag la'aan ah markale isku soo noqod wanaagsan waxaan soo koobayaa wararka ugu waaweyn madaxweynaha dalka Mareykanka Mr Trump ayaa markale lagu waramayaa inuu ka badbaaday isku daydil hay'adda FBI-da ee dalka Mareykanka ayaa shaacisay inay baaritaano ku sameynayaan wax u muuqanaya isku daydil oo kale oo la doonayay in lagu qaarijiyo musharax madaxweyne Mr Trump kadib markii hay'adaha amniga ay ka hortageen ruux sida la sheegay ee doonayay in uu toogto madaxweynaha goob lagu ciyaaro ciyaaraha golfka loo yaqaano oo xeeb ahayd oo galbeedka Florida ayuu ku sugnaa madaxweynihii hore ee dalkaasi Mareykanka waxaana lagu waramayaa in tani ay ku soo beegmayso bilooyin ka hor ugu yaraan 2 bilood ka hor markii la isku dayay in lagu qaarijiyo gobolka Pennsylvania oo dalkaasi Mareykanka ah madaxweyne Trump waxa uu yiri uma joojin doono inaan ahaado musharaxa xisbigayga sidoo kalena aan doonayo talada dalka Mareykanka mar kale inaan gacanta ku dhigo qorshayaasha la doonaya in lagu carqaladeeyo amnigayga waana sii tartamaya waxaana ahay musharax doonaya in waxyaabahaas oo idil uu ka hortago madaxweynaha dowladda Mareykanka ayaa u muuqanaya mar kale inuu halistaas uu ka badbaaday kadib markii qoriga ama dhawaaqa rasaasta AK47 laga maqlay goobtii uu ku sugnaa ciyaarta golfka lagu ciyaarayay gudaha dalkaasi Mareykanka ruushkana waxaa lagu waramayaa maanta diyaarada droonisa inuu ku weeraray magaalada Kiev oo caasimadda dalkaasi Ukraine ah iyo sidoo kale magaalada Kharkiv waxaa soo baxaya macluumaadka ku saabsan gobolka Kiev oo kaliya in 2 ruux ay dhinteen kuwa kalena ay dhaawacmeen kadib markii diyaaradaha dagaalka ee dowladda Ruushka duqeymaha halkaasi ay ka fuliyeen Iran ayaa weli lagu eedeynayaa inay diyaarada droonisa iyo sidoo kale qalabka gantaalada plastiga inay ku wareejinayso dowladda Ruushka waxyaabaha ka soo kordha arrimahaasi iyo Suudaanta la hilmaamay ee dhibaatada adag dhexda kaga jirta barnaamijyadeena kale ayaan ku ogaan doonaa insha Allah like sar muuqaalka lana wadaag saaxiibadaada waad mahadsan tahay telefishinka Aljazeera ayaa soo bandhigay muuqaalo iyo cadeymo iyo sawirro muujinaya dowladda Masar oo biyo ku furaysa qaar ka mid ah godadkii ku yaalay marinka Gaza iyo sidoo kale ee dhinaca Rafah xadka ay wadaagaan sawirada ayaana muujinaya ciidamada dowladda Masar oo arrintan ka qayb qaadanaya biyahana ku fasaxaya godadkan oo ku yaala magaalada Gaza muddo 5 sano ka hor muuqaalka telefishinka Aljazeera ayaa muujinaya muuqaalo qarsoodi ah oo laga duubay ciidamada dowladda Masar iyo kuwa si cad loo duubay oo ka tarjumaya iyaga oo biyaha ku fasaxaya godadka magaalada Gaza 5 sano ka hor ayay sheekadan dhacday waxaa lagu tilmaamay mid ka mid ah dhabarjibintii ugu xooganeed oo ay la kulmaan muqaawamada Falastiiniyiinta godadkaasina waxay ahaayeen halkii ay ka neefsanayeen reer Gaza maadaama ay ka helayeen adeegyada ay uga baahan yihiin dhinaca iyo dowladda Masar maxaa yeelay inta kale adeegyada la kontaroolo iyo kuwa aan loo ogoleen ayaa ka soo gudbi jiray deegaanada dhinaca xadka oo 2 meel oo kaliya ayaaba magaalada Gaza laga soo galaa
meel ka mid ah ciidamada Israa'iil ayaa ku sugan, dhinaca kalena waxay ahayd magaalada Rafax. ciidamada Israa'iil mas-uuliyiin ka tirsan ayaa shaaca ka qaaday inay ilaa iyo 9 god ay ka heleen xadka Khaza iyo aaga Philadelphia. waa sida ay sheegeen, waana sababta ay halkaas ay kaga bixi laayeen oo waxay taagan yihiin halkan. haddii aan ka dhaqaaqno godadkaasi dib ayaa loo farsameynayaa, waxaana ay noqon doontaa meel ay mar kale oksijiinta ay ka helaan muqaawamada. aaga Philadelphia ciidamada dowladda Masar way ku adkaysanayaan oo waxay doonayaan inay halkaas ay in badan ay sii joogaan. muuqaalada telefishinka Aljazeera uu soo bandhigay ayaana ka tarjumaya caddaynta rasmiga ee muujinaysa in masaarida hore ee halkaasi gebi ahaanba ay godad ku baabi'iyeen. dhinaca kale 9 bilood kadib Israa'iil waxay qiranaysaa in 3 lahaystayaal ah oo maxaabiis ahaa ay ku dileen gudaha magaalada Khaza. warbaahinta Israa'iil ayaa xalay baahisay in 3dan maxaabiista ah oo lasoo helay meedadkooda bishii December ee lasoo dhaafay inay si cad u muujinayso inay ku dhinteen duqeymaha ay diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay ka geysanayeen magaalada Khaza. janaalka 12aad ayaa baahiyey in mas-uuliyiinta Israa'iil hadda ay qirteen maxaabiistii kale ahaa Ron Sherman oo askari ahaa, Nick Bezer oo isna askari kale ahaa, iyo Eliyahu Toledano oo isna nin rayid ahaa inay dileen ciidamada Israa'iil kadib markii duqeymo ay ka fuliyeen magaalada Khaza. bilowgii iyaga arrintan way qarinayeen, laakiin waa qirashadii ugu horeysay oo Israa'iiliyiinta ay si toosa u baahiyaan maalmo ka hor, markii ay sidoo kale dileen qaar ka mid a maxaabiistii laga helay dhinaca iyo Rafax, taasoo banaanbaxyadii aad u sii kordhisay. waxaa kaloo ay sheekadan kusoo beegantay iyada oo dadka weli ay banaanbaxayaan oo magaalooyinka waaweyn isugu imaanayaan, dalbanayaanna in qalinka lagu duugo heshiiska madambeysa oo maxaabiista la isku dhaafsanayo. tani bishii February Israa'iil way ka gaabsanaysay inay macluumaad ay ka bixiso dilka maxaabiis aad u tiro badan oo la rumaysan yahay inay magaalada Khaza ay ku dhinteen. xogaga muqaawamadana waa tii ay lahaayeen 70 maxaabiista Israa'iil iyada ayaa gacanteeda ku dishay. arrintan xasarada ayay sii kordhi doontaa oo gudaha Israa'iil ka jirta, maadaama ay dadku weli bannaan baxayaan, doonayaanna in heshiiska maxaabiista qalinka lagu duugo si ay maxaabiistoodii ay u helaan ama ehelkoodii ay u helaan. ugu dambeyntii dowladda Morocco ayaa ka hortagtay muhaajiriintii ugu badnaa oo doonaya inay ka gudbaan magaalada Quetta lagu magacaabo, oo ah meel ay xad kala wadaagaan dhinaca iyo dowladda Spain. arrintan waxay ka dambeysay kadib markii muuqaalo lagu baahiyo baraha bulshada, muuqaaladaas oo muujinaya dad aad u tiro badan oo dhinaca buuraha ka gudbaya, weliba Afrikaan u badan, doonayana inay dhinaca Spain ay galaan kadibna wadamada kale ee qaaradda Yurub ay kaga gudbaan. dowladda Morocco marka muuqaaladaasi ayaa baraha bulshada ay ku aragtay, kadibna tallaabo ayay qaaday oo ciidankii ayaa heegan la geliyey si looga hortago qorshe kasta oo ay dadkan kaga gudbi karayaan dhinaca xadka. waxyaabaha ka soo kordha waan ogaan doonaa. like saar muuqaalka, la wadaag saaxiibadaada, aad baad u mahadsan tahay. waxaa laga yaabaa weli inaad isweydiinayso muddo sanad ah oo muqaawamadu ay dagaalamayaan, awooddoodii halkii miyay weli taagan tahay mise hoosu dhac ayaa ku yimid? waxaa su-aashan ka jawaabay Osama Hamdan, wuxuu ka mid yahay hogaanka muqaawamada Falastiiniyiinta. waxa uu sheegay in xoogaga iska caabinta ee Falastiiniyiinta weli ay awood aad u sarreysa ay leeyihiin, awooddaas oo ay ku sii wadi karayaan dagaalka ka dhanka Israa'iil. in ka badan 11 bilood ayay hadda dagaalamayaan muqaawamada iyo Israa'iiliyiinta. Osama Hamdan oo waraysi siiyay wakaaladda wararka AFP isagoo ku sugan magaalada Istanbul, waxa uu yidhi muqaawamadu waxay awood u leeyihiin inay sii wadaan, weliba heer aad u sarreeya ay ku sii wadaan dagaalka, waana sii wadi doonaa. waxaa jira mujaahidiin aad u tiro badan kuwaas oo naga geeriyooday una hiiliyey dadkooda iyo dhulkooda, laakiin marka dhinaca kale la eego waan sii wadi doonaa dagaalka. waxaana sidoo kale qoranaynaa generationno ama jiil kale oo aad u cusub oo ka mid noqonaya ciidanka lana dagaalamaya gumaystaha. waxaa jira kuwo aad u tiro badan oo aan ku weynay furumaha dagaalka, laakiin horumar ayaan ka gaaraynaa. natiijada ugu dambaysana waxay tahay in muqaawamadu weli ay awoodaan, xitaa ay sii dagaalami karayaan in ka badan inta hadda la dagaalamayo. maalmaha soo socdana waad arki doontaan natiijada. sidaasi waxaa yidhi Osama Hamdan oo ka mid ah muqaawamada Falastiiniyiinta. arrintan hadalkiisa waxay kusoo beegmaysaa wax ka yar 7 markii wasiirka gaashaandhigga Yoav Gallant uu sheegay in Xamaas aysan awood u lahayn military ahaan in ay kasii samaysmaan magaalada Khaza.
waatii xitaa uu lahaa hadda militari ahaan awood uma lahan muqaawamada marka laga hadlayo furumaha dagaalka. sidoo kale Osama Hamdan wuxuu si cad u sheegay in Yaxya Sinwar marnaba uusan ka tagi doonin dhulka Falastiiniyiinta. wuxuu yiri Yaxya Sinwar dhowr jeer ayaa la isku dayay in la qaarajiyo, waana ugu talagalay inuu ku shahiido kumanaan jeer magaalada Khaza. Yaxya Sinwarna kama dhaqaaqi doono Falastiiniyiinta, waxaana uu sameynayaa wax kasta oo lagu xurayn karayo guud ahaan Falastiin. dhinaca kale intii waraysiga lala yeelanayay Osama Hamdan waxa uu tilmaamay Mareykanka inuu yahay cidda dhabarka ka taagan Israa'iil oo hubka iyo siyaasadda iyo militariga yacni wax walba ku taageeraya si uu ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu u sii wado dhiigga daadanaya dagaalkana aan loo soo gabagabaynin. cadaadis ku filan ma uusan saarin buu yiri ra'iisul wasaaraha, waana uu saari karayaa si dagaalka loo soo gabagabeeyo. waxa kale uu yiri magaalada Khaza waxaa maamuli doona Falastiiniyiinta, ma ogolaan doono inay gacmo shisheeye ay maamulaan. gacanta Falastiiniyiinta oo wada jir ah ayaa lagu maamuli doonaa magaalada Khaza. sidaasi waxaa hadalkiisa ku soo gabagabeeyay Osama Hamdan. in ka badan 11 bilood ayaa lagu dagaalamayaa magaalada Khaza. waxaa Falastiiniyiinta garab istaag u muujiyay Xisbullah iyo sidoo kale Xuutiyiinta Yemen iyo kooxaha ka dagaalamaya gudaha dalka Suuriya. dhinaca kalena xogaga iska caabinta ee Falastiiniyiinta ayaa waxay ka hadleen qorshaha Israa'iil ee ku qoranayso dadka muhaajiriinta Afrikaanka ah ee ku sugan gudaha Israa'iil, kuwaas oo sida la sheegay ka mid noqonaya ciidamada Israa'iil, loona ballan qaaday in deganaanshaha iyo waxyaabaha kale laga saaciidi doono. xogaga muqaawamada ee Falastiiniyiinta ayaa waxa ay shaaci ka qaadeen in dadkaasi magangalyadoonka ah kaliya la doonayo in lagu shido xaabada ama dagaalka ka soconaya magaalada Khaza, waana qorshe khasaare xoogan lagu gaarsiinayo ciidamadiisa. waxay yiraahdeen bal aan aragna waxa kaga soo horeeya magaalada Khaza. xogaga Falastiiniyiinta waxa ay sheegeen in ciidan aad u tiro badan oo Israa'iiliyiin ay ku dileen magaalada Khaza. ciidamada Afrikaantan ay kuwaasay la mid noqon doonaan. wargeyska afka Cibraaniga ah ku hadla ee Haaretz la yiraahdo ee Israa'iil ka soo baxay ayaa shalay baahiyay macluumaadka ku saabsan in dad badan oo magangalyadoon Afrikaan ah ee la bilaabay hadda in la diiwaan geliyo iyada oo ballanqaadyo kala duwan loo sameeyay. hore waxaa halkaasi u joogay Ethiopian aad u tiro badan, kuwaas oo laga daabulay deegaanadooda, haystana diinta Yahuudda, waxaana ay inta badanba ay ka mid ahaayeen ciidanka Israa'iil ka dagaalamaya. muqaawamada marka waxay yiraahdeen bal aan aragna waxa kaga soo horeeya furmaha dagaalka. ilaa iyo 30,000 oo muhaajiriin Afrikaan ayaa la rumaysan yahay inay hadda ku sugan yihiin gudaha Israa'iil. inta ugu badanna waa dhalinyaro. 3,500 oo kamid ah waxaa la sheegay inay Suudaaneys ay yihiin. sidoo kalena waxaa halkaasi jooga ilaa iyo 3 dowladood oo Afrikaan ah, dadka soo kala jeeda waxaana u badan yihiin Ethiopia iyo Suudaan. dhinaca kale Israa'iil fashil aad u weyn ayay dhexda ka joogtaa, oo hadda qayladaan ayay muujinaysaa oo waxayba isleedahay yaa dagaalka idinka soo gabagabeeya. sababta sidaasi loo leeyahay waxay tahay fashilka dhinaca sirdoonka iyo sidoo kale fashilka dhinaca nidaamka difaaca. tusaale ahaan nidaam difaaceedka Israa'iil ayaa ku guuldareystay inuu ka hortago diyaarad drone ah oo dhinaca iyo Lubnaan laga soo diray, waxaana lagu warramayaa diyaaradaasi ilaa iyo 30 kilomitir inay gudaha u soo gashay deegaanada Israa'iiliyiinta xooga ay ku haystaan. raadiyaha ciidamada ayaa xalay waxa uu baahiyay diyaaradan inay gudaha u soo gashay ilaa iyo 30 kilomitir, wax nidaam difaaceed oo ka hortagana aanay jirin, waxaana ay ahayd diyaarad drone ah. waana diyaaradii drone ee ay xoogaga Xisbullah ay sheegeen inay ku bartilmaamaysadeen saldhig military oo Israa'iiliyiinta ay ku leeyihiin dhinaca xadka Lubnaan iyo Israa'iil ay wadaagaan. ku dhawaad ama in ka badan 10 daqiiqo ayaa la sheegay diyaaradan inay hawada Israa'iil ay ku jirtay. ugu dambeyntii waxa ay ku qaraxday agagaarka webiga Jordan halka loo yaqaano oo waqooyiga deegaanada Israa'iiliyiinta ay xoog ay ku haystaan. ciidamada Israa'iil ayaana ka gaabsaday inay faahfaahin ay ka bixiyaan waxyeelada diyaaradaasi ka dhalatay, laakiin waxa ay dhexda kaga jiraan fashil kale oo aad u daran. iyadoo sidaa ay tahay marka Netanyahu waxa uu yiri Xisbullah iyo Xuutiyiinta waxay bixin doonaan qiimo kasta oo ku kacaya dagaalka ay ka wadaan gudaha Israa'iil. Xuutiyiinta waa tii ay gantaal ay ku weerareen magaalada Tel Aviv, gantaalkii balastiga ahaa oo saldhigga military lala eegtay. Israa'iilna ay tiri 9 ruux oo kaliya ayaa ku dhaawacantay. marka Netanyahu wuxuu yiri qiimo kasta oo ku kacaya yacni waxay ay geysteen ayay bixin doonaan Xuutiyiinta dalka Yemen. Xuutiyiintana kama aysan waalin oo iyagana way soo jawaabeen, waxaana warbaahinta la hadlay Cabdimaalik Al-Xuuthi waxa uu yiri
yacni waxa soo socda ayaa ka weyn waxa netanyahu iyo saaxiibadiiba ay arkeen. cabdimaalik alxuuti oo ah hogaanka kooxda xuutiyiinta ee dalka yemen garab ka mid a ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in wax kale oo lala yaabo ay soo wadaan. dhowaan waa tii ay lahaayeen wax lala yaaba ayaan soo wadnaa, malaha gantaalkii blastiga ay maalin ka hor ay talaaviib ku weerareen ayay kala jeedeen. sidoo kale warbaahinta xuutiyiinta ee dalka yemen ayaa baahisay inay xuutiyiinta diyaargarow kale ay wadaan, sidoo kalena ay doonayaan inay ka hortagaan gardarrada ay weli ciidamada Israa'iil ka wadaan furmaha dagaalka ee magaalada Khaza. ciidankeena militariga waa uu sii howlgali doonaa, waxaana uu wadi doonaa dagaalka ka dhanka Israa'iil inta ay iyaga gardarrada magaalada Khaza ay sii wadaan. waxaan kaloo sii wadi doonaa inaan la shaqayno dhinacyada kala duwan ee jihaadiyiinta iyo muqaawamada. waxaa soo socda wax kale oo aad u weyn insha Allah, sidaas waxaa yiri cabdimaalik alxuuti. howlgalkeennii maanta uu kala jeedo howlgalkii gantaalkii ugu dambeeyana wuxuu ahaa mid aan u isticmaalnay gantaal tayadiisu aad ay u sarreyso oo ah gantaal dhaqaaqa ilaa 2040 kilomitir masaafo gaaraysa. sidaas waxaa hadalkiisa kusoo gabagabeeyay cabdimaalik alxuuti. jihooyin kala duwan ayaa hadda Israa'iil dagaal ay kaga furan yihiin. marka la eegana Israa'iil way ka caddahay, maxaa yeelay nidaam difaaceedkii fashil ayaa ku yimid. hay-adihii sirdoonka way ogaan waayeen macluumaadka ku saabsan in gantaala balastiga lagu soo weerarayo. sidoo kale hay-adihii amniga digniin ayay soo saari laayihiin oo ku saabsan waxa soo soconaya. xuutiyiin aad u tiro badan waxaa la rumaysan yahay dhinaca Suuriya inay ku sugan yihiin. sidoo kale Lubnaan weerar ayaa kaga imaanaya, muqaawamadii magaalada Khaza ayay ku eryanaysaa. arrimahaas oo idil waa quusta iyo fashilka Israa'iil ee dhexda kaga taagan tahay. laakiin weli Netanyahu go'aanadiisa ayuu ku dhaqaaqayaa. sidoo kale waxaa fashilka qayb ka ah in saraakiil badan ay iscasilayaan. wasiirka gaashaandhigga taliyaha ciidamada Israa'iilna suuragal ay tahay ilaa December-ta soo socota inuu iscasilo. arrimahaasoo idil ayaa marka waxay muujinayaan sida Israa'iil ay kaga caddahay, laakiin mar walba ay doonayso inay biyaha ka maydhato. maxaad ku kordhin lahayd? like san muuqaalka la wadaag saaxiibadaada, waad mahadsan tahay.